musharax madaxweyne Puntland 2019 Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland waxaa musharaxa garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Abshir Haamaan ku soo dhaweeyay bulshada qaybaheeda kala duwan sida odayaasha dhaqanka haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale waxaad arkayso dhamaantood waxay wada taagan yihiin in ay soo dhawaayaan in musharaxa waan rajaynaynaa inuu madaxweynimada ku guuleysto gulba u rajaynaynaa musharaxa ayaa intaa kadib loo soo galbiyay barxadda weyn ee magaalada Garowe isagoo oo ku soo dhex maray gudaha magaalada dadweyne aad u tiro badan ayaa soo buux dhaafiyay barxadda weyn ee magaalada Garowe iyagoo oo watay halkudhigyo ay ku taageerayaan musharaxa Cabdi Faarax Siciid Juxa oo xilal kala duwan ka soo qabtay Puntland iyo Soomaaliya wuxuu hadda ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya xilka ugu sareeya dawladda Puntland musharaxa oo dadweynaha kula hadlay barxadda weyn ee magaalada Garowe wuxuu sheegay in haddii la doorto uu wax ka qaban doono arrimaha ay ka mid yihiin amniga waxbarashada caafimaadka iyo in Puntland ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah waxay muujinaysaa sida ay dadku ugu heelayeen inay aayahooda gacanta ku qabsadaan inay iyagu ka tashadaan in dadka ay rabaan ay soo doortaan anigu Puntland ma ahi qofku cusub ma ahi siyaasadeeda iyo waxqabadkeeda anigoo yar ayaan u dhiidhiyay gobolkan tabashadiisa iyo taariikhdiisa ayaan u dhiidhiyay anigoo wasiirka waxbarashada ayaan ka soo shaqeeyay in wiilasha iyo gabdhaha reer Puntland ay helaan waxbarasho wanaagsan oo maanta Soomaaliya oo dhammi ku faanayso waxaan ka shaqeynayaa kobac dhaqaale dhaqaale la isku halayn karo oo amniga laga shaqayn karo oo adeeg lagu fidin karo oo dadku xuquuqdooda iyo mushaharkooda heli karaan ayaan ka shaqeynayaa waxaan ka shaqeynayaa dadka reer Puntland ee wada dhisay Puntland 20 sano ka hor oo iyagu sharabitaankooda isugu yimi oo halkaan isugu yimi in ay laga shaqeeyo wada jirkoodii waxaan ka shaqeynayaa xooga saaraya in la helo maamul wanaag dawlad dimuqraadiya oo dadku soo doortaan oo musuqmaasuqa la dagaasho oo xukuumadaheedu awoodaheedu aysan gacan ku wada jirin oo baarlamaanku xoog leeyahay oo dawladdu xoog leedahay oo garsoorku gaar u dhisan yahay oo isxisaabisa oo aan madaxweyne kaliya ahayn oo aan madax ka nool ahayn oo markii madaxweynihii waa la tegey aan la dhahayn dawladda ayaan dhisayaa oo reer Puntland gaar sideeda gaarkooda ay uga tabanayaan waan u geed fadhiisanayaa waan ka garnaqayaa dadka reer Puntlandna waan isla doonayaa Muuse Biixi waxaan leeyahay Muuse Biixi waxaan leeyahay gobolka Sool Puntland gorgortan kama gelayso dadkiisa ayaa doortay inay Puntland noqdaan annana taasaan ka shaqaynaynaa Jaafar Macalin Maxamed Puntland TV Garowe